باسمك اللهم أدعو في الصباح والمساء فاستجب لي يا إلهي ولتحقق للرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا شرفت الله وميل كستو جوجتانبا kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho ee TV-ga Soomaaliya. barnaamijka waxbarashada waxaynu kusoo qaadan doonaa toddobaadkan haddii Allah uu raali ka noqdo wareysi aanu la yeelan doono maamulka guud ee iskuulka Al-Ulum wad-Da'wa iyo qaar kamid ah ardayda oo soo bandhigi doona aqoontooda annagoo diiradda ku saari doono iskuulkaasi iyo qaabka uu shaqeeyo iyo waxbarashada uu soo bandhigo. barnaamijka intuu socdo waxaa dhanka kaamirada iga saacidi doono mahad ballaaran ka gaadhay kaamirmaanka la yiraahdo Cabdiraxmaan Macalin Cabdulle. waxaan idin la socodsiin doonaa anigoo Cabdikaamil Yuusuf. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdi Fitaax Maxamuud Axmed Abaal. kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka waxbarashada oo aynu kusoo qaadan doono madrasatu ad-da'wa wal-ulum. باسمك اللهم أدعو في الصباح والمساء فاستجب لي يا إلهي ولتحقق للرجاء. باسمك اللهم أدعو في الصباح والمساء فاستجب لي يا إلهي ولتحقق للرجاء. ربي فلتنصر بلادي في ميادين الجهاد واطردا منها الأعادي ولتنل كل المراد. ربي فلتنصر بلادي في ميادين الجهاد واطردا منها الأعادي ولتنل كل المراد واطردا منها الأعادي ولتنل كل المراد. باسمك اللهم أدعو في الصباح والمساء فاستجب لي يا إلهي ولتحقق للرجاء. وارعى يا رباه أمي إنها ينبوع ضري وأبي سدد خطاه واحمه من كل شر. وارعى يا رباه أمي إنها ينبوع ضري وأبي سدد خطاه واحمه من كل شر. وأبي سدد خطاه واحمه من كل شر. hagaag nabad mar kale aqyaarteenu jecelnahay oo barnaamijka aynu si aan baqaadi doonaaye wixii ka dambeeyay sanadii 1999 waxaa ka dhacay dalka Soomaaliya burbur iyadoo ay ka baxday meesha dawladii dhexe ee xilligaasi ka talinaysay. burburkaasi wixii ka dambeeyay waxaa hana qaaday iskuulo isugu jira macaahid iyo breefad si gaar ah loo leeyahay kuwaas oo sare u sii qaaday aqoonta. inta badan dadka aqoon-yahanada isku raaceen in dhanka aqoonta marka loo eego laga hormaray Soomaaliya. madrasada la yiraahdo Al-Ulum wad-Da'wa waxay kamid tahay macaahida markaasi ka hana qaaday geeyiga Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho iyadoo madrasadu ay kaga duwan tahay madrasooyin badan oo ku yaal Soomaaliya in ay tahay madraso diini ah oo soo saarta arday wax badan ka yaqaan culumta diiniga. haddaba barnaamijkeena madrasadaas ayaa inoogu martiya toddobaadkan waxayna ka koobnaan doontaa barnaamijkeena wareysi aynu la yeelan doono maamulaha madrasada Ustaad Sheekh Cabdishakuur Ibraahim Axmed iyo sidoo kale qaar kamid ah ardayda oo xog wareysi aanu la yeelan doono. qaybihii hore barnaamijka aynu sii gudagalaynaa bal marka hore waxaynu soo eegi doonaa ardayda oo soo bandhigi doona qaar kamid ah aqoontooda ku aadan cilmiga ay ka barteen madrasadan. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إخواني، أولا القلب هو مفتاح السعادة، القلب هو مصدر الفرح، القلب هو مصدر المعرفة، القلب هو مصدر الإيمان، والقلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله.
ولذلك عليك أن تحافظ على قلبك. القلب هو أشرف شيء في الإنسان، وبحياته حياة البدن وبموته موت البدن، ولأجل هذه المكانة عظيمة للقلب جاءت النصوص الشرعية. التعليم هو أساس الحياة وركن العيش وميزان الحقيقي لمعرفة مستوى الشخص من المجتمع. التعليم يحصل بالاجتهاد وقوة العزيمة والهمة، ولا يحصل بالتكاسل. وابي نور حياتي، أمي وابي نور حياتي، أدعو لهما بالخيرات، أدعو لهما بالخيرات، أمي وابي ربيا ذاتي، أمي وابي ربيا ذاتي، أكرمهما طول حياتي، أكرمهما طول حياتي. فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل واجتهدوا في معرفة أحكام الشرعية وتزوجوا من علم نافع الذي يقربكم إلى ربكم سبحانه ويكون سببا في رفعة في الآخرة الأولى. قال جل وعلا أن الفضل أهل العلم العاملين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. علمي كما نبوها عيني عصر العالم كور من العلم باور سيدا أنما حاسد أسكول عان هو العلوم له معدل العلوم سكول وهدان عرفيو عد سكول ويعان وعرور يعلوله باي ودوزين باينت علومتي علم قرشة ديريو عايب وكعان بحي عرفي ذا دوك انت عالم سكول سقاو عنه dadku ay ujeeyaan macallimiin haboon aan cayb lahayn oo ka caajiseen oo ku cabsiyo cilmiga ku caanha علوم kala go'ayna 10 baaqanayna macallimiin amal wanaag oo caajinimo ee bixinta kugu dhigayo ku caan 10 caalami oo loo fiicankeeyay oo caawinaysa ardayda iyo ku caan cilmi laanado way inta hadii yaaliyo ku calaacan leedmaanta biyo garu ka casmin قادر على كل شيء. أشهد حقيقة أن الله إله رازق على كل شيء. أشهد حقيقة أن الله إله حافظ كل شيء. أشهد حقيقة أن الله إله على كل عالم بكل شيء. ماذا تشهد حقيقة؟ أشهد حقيقة أن الله إله مستصف بعباده. ماذا تشهد حقيقة؟ أشهد حقيقة أن الله إله بصير بصفاته. To start with my topic in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Today I want to talk about educational affairs. And education is a gathered fact and important thing that you can get a lot of significance from what you are learning. Reality, education is a process that which nurtures the mind and regenerates the spirit. The prosperity and well-being of a country depend much on the quality and the character of its people. من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkani waxbarashada oo aynu ku eegayna maanta xaaladda waxbarasho ee madrasada la yiraahdo al-Ulum wad-Da'wa. markana waxaanu geli doonaa qaar kamid ah fasalada madrasada si markaasi aynu eegno qaabka ay wax u bartaan ardayda. fasalada i'daadiga aynu ku bilaabi doonaa ama dugsiyada dhexe. marka qiimaha sida aynu loo dirsiinka waa mutanayn marka qaabka uu soo saareen qaabka aan igala doonaya marka qaabka hore uu soo qaaday maxaa soo qaaday ayadoo mutaqayyid waaxid ah Soomaaliya hada mutaqayyid waa inaan maadaama mutaqayyid uu tanaw yahay shaqadii daraad waxa kama bedelo laakiin waxa xal u baahan mutaqayyidka waxa la ismaa mar walba in la helo maartay shay uu uga baxo maartay mutaqayyid markii laga saaray qaybta kuwa soo qaadanayna waa sida arkayseen daawadayaal qaab caynkaasi oo kala ayaa duruusta loo siiyaa ardayda wax ka barata madrasadan bal aynu eegno ardayda iyo qaabka fahamkooda casharada. ardayga ugu horeeya ee aan wax weydiin doono waxa uu noqonayaa ardayda la yiraahdo Fathi Abdullahi Cilmi. Fathi ugu horeyn waxa naga siisaa faahfaahin qaabka casharada fahamka aad qaadato casharada iskuulka ka baxay. aad iyo aad ay u fahmay maadooyinka duwan ee madrasada ka baxsada kitaabada iyo maadooyinka maadiga ay kamid yihiin kitaabka mustalahul hadiiska aad ugu fahmay iyo maadooyinka maadiga sida Ingiriiska, Soomaaliga, xisaabta iyo maadooyin oo halkan ugu soo koobi karo. ilaa imisa dhiganaysa iskuulkan?
iskuulkan waxaa dhiganaya muddo 3 sano ku dhawaad ka waran marka garaadka aqoontaada ma qiyaasaysaa inuu aada u kacay marka loo eego xilliga hore iskuulka soo gelaysay iyo xilligan muddo 3 sano dhiganayso dabcan haa waa gartay cilmigaa ka baratay iskuulka maxaa nooga soo bandhigi kartaa oo ka mid waxaan kaga soo bandhigi karaa oo ka mid ah kitaabka mustalaxul xadiiska ah أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشهد أو يعل يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضابطه ونقله. قدروا الشيخ عبد العزيز وحكمتها أرضي وحكبرتها إسكولك قدروا الفافاين اللي سيادنا فهم كاجا عشرة إسكولك كبحة هي وحيابها لو شيء. طبعا كبرتنا معتمد على عقيدة بيكون حديث كسيرة فقهية هذا وحن صوت جالس كتاب عقيدة. أي بروح لو شيء. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجز ولا إله غيره قديم بلا اعتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيض ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغ الأوهام ولا تبلغ الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا موت مميت بلا مقافل باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونه لم يكن قبله من صفته فكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفادة اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفادة اسم الباري. وحكم هاي فصلنا الدكسية مدرسة العلوم والدعوة waxaan wax ka weydiin doonaa ardayda iskuulkan wax ka barata gaar ahaan dugsiga hoose qaabka ay wax u bartaan iyana waxaan ugu horeyn doontaa ardayda lagu magacaabo Rooydo Cabdicasiis Qorane Rooydo marka waxaa warbixin kooban naga siisaa madrasadan goorma ku soo birtay hal sano ka hor maadooyinka ka bartay maxaa kamid fiqh xadiis ka waran marka waxbarashada madrasadan maxaa ku tilmaami kartaa heersare ka war markaa iskuulkan kusoo birtay ilaa hadda waxbarashadaada wax koran ka daran maadooyinkan ku baratid ama sida gaar ku xiisaysan maxaa kamid xadiista ay wuxuu noogu sheegi kartaa xadiista xadiis noo aqri إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي حفصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة sidoo kale waxaan wax ka weydiin doonaa ardayda dugsiga hoose ee wax ka barta madrasadan qaabkay wax u bartaan ardayda lagu magacaabo Raxmo Saciid Abubakar oo iyadana ardayda kamid ah waxaan ka bartay duruus aad u fara badan fasalkee hadda dhigataa ibtidaa'iga fasalada fasal kamid ka waran marka waxyaabaha ka baratay cilmiga islaada waxyaabo xilligan dumarka inay bartaan ku habboon tahay weeyaan maxaa leedahay iskuulkan uu kaga duwan yahay iskuullada kale diiniga ahayn laakiin wax lagu barto waa garta waxyaabaha baratay maxaa nooga sheegi kartaa oo ay noo aqrin kartaa من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل جاء بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة ويتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام نسبه وفاة والده عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فتجتمع أمه مع والده في جد الخامس وهو كلاب ولقد توفي والده وهو في بطن أمه وعمره 18 سنة ودفن بالمدينة ولم يترك له شيئا من المال ولادته ورضاعه ولد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل وسمي عام ولادته عام الفيل لأن ملك الحبشة أرسل عام ولادته جيشا إلى مكة لهدم الكعبة
وكان فيه فيل عظيم فأهلك الله الجيش إكراما لولادة النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعته بعد أمه ثويبة الأسلمية خادمة عمه أبي لهب ثم حليمة السعدية إلى أن بلغ عمره 4 سنوات. داود يعني weli waxaan ku jirnaa barnaamijkan waxbarashada markan waxaanu u gudbi doonaa dugsiga sare ee madrasada si ardayda dugsiga sarena iyagana ay wax badan uga ogaano qaabka wax u bartaan. هناك في المكان البعيد مقابر بداخلها أناس يتنفسون ويسبحون ويسجدون. مقعيالكو ومقع اللغة مدواقع سيدا وحاكمة إيادا إساقا إناقا أنيقا أدينكا أديقا أيها كميدا كواسا وحا لو يقانا بروناوس waxaa sidoo kale laga soo saaraya waxa loo yaqaano adjectives waxa la yiraahdaa sifahaas oo marka cadeyn kara qof in wanaagiisa uu sheegi karo xumaantiisa uu sheegi kara ama ashyaada kale sida dheer gaabni fiicnaan xumid waxyaabahaas oo marka waxaa loo yaqaanaa adjectives oo laga soo saaray from the following ayaa laga soo saaraya jumladaha soo socda جملة كواد waxay tahay Grace is a nice girl. Jooriye Macallin Maxamuud waxay ka mid tahay ardayda wax ka barata madrasada isla markaasina ku rajo weyn inay ka qalin jabiyaan maadaama dugsiga ay ka dhigato qaybta sare ee ugu dambaysa dugsiga sare. Jooriye marka hore waxa uu bixin kooban naga saabal waxbarashadaadii iskuulkan iyo qaabka ugu qanacsan tahay. Iskuulkii misana dhiganaysaa saddexdaasi sano waxyaabaha ka baratay oo iskuulka ku amaani kartid maxaa ka mid ah علومta diiniga sida kitaabka xadiiska kitaabka usul fiqiga kitaab fara badan waxyaabaha nooga sheegi kartid ama noo soo bandhigi kartid ka mid ah aqoontaada ka baratay madrasada kitaabka sharx waraqaad هاك أصول الفقه لفظا ولقبا للفن والجزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان والأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وما سنتهاي سلوك على أحمد عبد الشكور أصلا كوميديا عرضية دوكسي سريع مدرسة نكتاسنا سؤالا ينكون جدونا قابك وحبرشيديس. waxaan ku soo biiray markii la furay iskuulka Al-Ulum Dacwa waxaan ka soo bilaabay primary-gayga ilaa secondary-gayna waan wadaa waxaan ku rajaynahay inaan maaragtay aan ka dhameeyo ilaa heer jaamacadna shahaado jaamacad aan ka qaato ilaahay hadduu yiraahdo marka madrasooyinkaas aad dhiganaysay marka qiimeyn ku samaysay ka waran maxaa isleedahay madrasooyinka kale kaga duwan tahay runtii madrasooyinka wax weyn ay kaga duwan tahay waayo hadda waqtiyadaad ku wareegtid madrasooyinka lagu dhigo diinta islaamka aad ay u yaryihiin soo farqatiris waayo waxaa qabsaday dunida waxaa qabsaday ardayda wada baranaysa maadiga maartay ahaan dugsi sare dugsi dhexe ahaan leed iskuulkana waxyaabaha lagu amaano waxaa kamid ah in maartay maadaama aan nahay islaam dad Soomaaliya oo islaam aan nahay in aan barano diintan aan wax ka barano si aan ugu dhaqanno maadooyinka diiniga iskuulka lagu dhigo imisay leeyihiin maxaa kamid runtii way kala duwan yihiin waayo waxay leedahay primary immediate iyo secondary leedahay inta badan waxa u badan maadooyinka diiniga islaamka maadooyinka secondary lagu dhigo hadda wax kaaga sheeg waxaa kamid ah riyaas saalixiinka yaqut nafiska musdalih nuqd al-fikr waxaa kaloo kamid ah maaragtay ayo maadooyin kale oo fara badan way kamid ah waa hagaag daawadayaal waxa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena ama qaybihii ugu dambeeyay haddaba qaybtan waxaynu ku wareysan doonaa maamulaha guud ee madrasadan oo lagu magacaabo Sheekh Cabdi Shakuur Ibrahim Ahmed. Sheekh Shakuur marka hore TV-ga Soomaali Sad ku soo dhaw studio-diisa magaalada Muqdisho. waxaan leenahay waa mahadsanyahay TV-ga maanta la soo booqday waxaan ku soo dhaweynaa wax ugu soo dhawaxa ugu qiimaha badan taasoo ah salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحنا هاي وحلا سوي هذا وحنا قيام بدن والنبي يقول من صنع إليه معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أدى شكر ذلك أو كما قال يعني النبي عليه السلام نكي وناق الله سمايه ويقول هذا جزاك الله خير فقد أبلغ الثناء وحقوق الإرادي أمانته مركو عيد لنا جزاكم الله خيرا
waa tahay su-aashii ugu dambeysay raba inaan ku weydiiyo waxay noqonaysaa madrasadan goorma ayaa la aasaasay marka hore? madrasadan waxaa la aasaasay 2002 bishii 8 ayaa la aasaasay xaaladii ay Etoobiyaanku soo gali jiray oo wadanka soo galay. halkee ahayd marka goobtii ugu horeysay meesha lagu aasaasay waxay ahayd degmada Dharkeynley qaybta Cadaare. waa gartay ujeedooyinkii loo aasaasay marka maxay ahayd madrasadan diiniga? ujeedooyinka loo aasaasay markii in badan kulli asad ogsan tahayba dhibaatooyinka dhacay waxaa hoos u dhacay waxbarashadii dadkii waxbaran lahaa khaasatan diintii islaamka dadka baranayay ayaa hoos u dhacay. isla markaas waxaa soo baxday in dhacdooyin badan ay dhacayaan oo sababay jahli fara badan kaasoo weliba asalkiisu yahay jahliga xagga diinta islaamka. sidaa darteeda markaa fikir badan iyo dadaal badan ka bacdi waxaa macnaha go-aansanay inagoo dad badan ah inaan bilowno madariso yacni diinta islaamka ay ugu xoog badan tahay isla markaasna dhaqankii islaamkii laga baranayo culumta maadiga ah iyo diiniga labadaba laga baranayo. marka in dadkaasi lagu toosiyo oo maanta nin walba kaas haddii uu rabo in ummadda wax u qabto xibinta ugu qiimaha badan inay tahay in laga dhiso xagga kaasada waxbarashada laga dhiso oo lagu dadaalo. arrinkaas ayaa noogu weynaa. inta madrasadan ay jirtay oo ay dhisneyd oo muddo sanada waxyaabaha idin qabsamay oo dhanka horumarka taaban kartid maxaa ka mid waxyaalaha noo qabso waxaa ka mid ah horta inay ka qalinjibiyeen ardayda 2 dafcadood iyadoo ay macnaha ardaydaasi isugu jireen dad da-dooda iyo kaas aysan isla ekayn iyo waxbarasho marka loo sameeyey koorsooyin aad u fara badan oo aad u dadaal badan lagu bixiyey. marka waxay sababtay in dadkaasi markii imtixaan laga qaaday ay munaasab u noqdeen in ay qaataan shahaado sare oo maca dalika ay hadda jaamacadaha localka ay ku jiraan. sidoo kale jaamacadaha dibadda ah jaamacad ku taala wadanka Pakistan ee qaar ka mid ah shahaadadaasi ku tageen ayaa ka dhacday. waa gartay dalka Soomaaliya burbur ayaa ka dhacay sida la socotay dhibaatooyinka jiray waxay saameeyeen bulshada qayb kasto ka mid ah dhanka bahda waxbarashada saxafiyiinta ganacsatada siyaasiyiinta dhan walba. marka caqabado madrasadan si gaar ah u qabtay intii dhisneed oo aanu sheegi kartay jiraan? xaqiiqatan kolley ma jiraan wax hadda caqabado hadda aan sheego oo culays weyn ah ma jiro. laakiin caqabaduhu way iska fara badnaan karaan. waqtiga la aasaasay oo waqti xasaasi ah culus ahaa iyadoo maanta yani dhaqaalaha yani madrasa u baahan tahay in qof kasta iska garan karo culeysyada noocaas oo xaggii macnaha ka jira ma ahane inta kale ilaahay waa noo fududeeyey. ilaahay naguma dhibin maxaa yeelay waxa aan ku raadayn ayaa wuxuu ahaa in ilaahay nooga raali noqdo wamaca dalika la anfaco ummadda la anfaco. waa gartay hadda waxaa ka jira Soomaaliya madrasooyin badan oo bareefad ama si gaara loo leeyahay. madrasadan sida magaceeda ka muuqdaba dhanka diiniga ayaa lagu tirinayaa waxyaabaha ay kaga duwan tahay madrasooyinkaasi kale ay jiro bal sharaxaad dheer asaasiba waxa ugu weyn horta in diinta islaamka lagu barto ayaa wax badan ومع ذلك دينت إسلام كان يعني ووحى قفك بن آدم كتوسيه هجاجيه وي شيء والبو وحوليه هدوها لابو قراش لقيه قراشك باورك هدوها لابو قراش بالقيه بلد كاجت ألحم بالقيه وكذلك قفك بن آدم كعدي أورب إنها إلا هجاجيه دوناي دين بالولد ذاله مركا وحاليه هاي وحاجة وحيالها مدارس كردار تاي و يعني حق الدين تولو دغو او وليبا كتبا او دميسترايو بدايه لما دميسترايو arrinkaas ayaa aan leeyahay macnaha in madrasada kale ay dheertahay shay walba markii la sameeyo waxa uu leeyahay target ama bartilmaameed meel la rabo mustaqbalka inuu gaaro waxyaabaha aad isleedihiin waad higsanaysaan ka madrasa ahaan maxay tahay? madrasada waxaan higsanaynaa horta ilaahay inoo soo jirsiiyo oo aysan naga macnaha aysan inqiraad naga kala go'in ومع ذلك هير جامعات أرضي كاس إن دري دود آذان وكذلك سيدا سوكرته إن يدا لفظ هذا هذه مستقبل كالإلهي هذا جامعات هوسته أو يدا كاس إن أساسنا الرماه صلوا وجعلنا إن شاء الله تعالى إن تدور كار أسيس زيادة ونرجع كالدول عن قدرنا سيدا كاس وي مواد كا أو لو يقانو سنتيفيك لو يقانو وهذا مركا أيضا عربي نقول بحلاكين
aan English daawadayaal guud ahaanna waxaanu intaas kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii waxbarashada ee toddobaadkan intuu socday dhanka kaamirada waxaa iga saaciideeyey cabdiraxmaan macalin cabdulle cabdiraxmaan dheere dhinkii ka hagaagsanna waxa uu ahaa injineer mustafa cabdiqaadir abiyare waxaa u mahadcelinayaa dhammaan asxaabtii igala qayb gashay diyaarinta barnaamijkan waa cabdikaamil yuusuf maxamuud oo daawadayaal idinle sidaas iyo is arag dambe xiise leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh باسمك اللهم أدعو في الصباح والمساء فاستجب لي يا إلهي ولتحقق للرجاء